subax wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada tabin kale iyo sheekooyinkii ugu waaweynaa xiisadda bariga dhexe. Iiraan oo xalay tole waxaan la arag oo aan la maqal ka dhigtay hawada Israa'iil 20 daqiiqo xalay. Dadka reer Israa'iil waa yaabanayeen cirka kaliya bay eegayeen. Hadda maxaa dhacay sheekada yaab kale ee arrintaasi qusaysa maxay tahay? Barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa. Sidoo kale wararkii ugu waaweynaa gantaaladii ku dhacay eraboorka magaalada Kuwait ee caasimadda dalka Kuwait. Sidoo kale magaalada Baghdad iyo dalka Saudi Arabia iyaduna xogo baan kaaga hayaa. Maxaa ka dhacay koonfurta dalka Lubnaan halkaasoo weeraro xoogan iyagu ay ka jireen. Sidoo kale waxaan ku hayaa umuuro kale update-kii ugu dambeeyay oo ay ka qayb yihiin weeraradii ugu dambeeyay ee dalkaasi Iiraan ka dhacay iyaguna qayb bay ka yihiin barnaamijkayga ayaan kugu soo gudbin doonaa. subax wanaagsan meel walba oo aad joogtaan daawadayaal. Waa maalinta koowaad ee bisha Abriil, waa maalinimo Arbaca sanadka 2026. kusoo dhowaada barnaamijkan oo dhammaystiran. waxaa noo soo socda weeraradii Iiraan ay geysatay, laakiin waxaan ka bilaabi doonaa bayaan ay soo saareen taliska dhexe ee la yiraahdo US Central Command oo ah halka laga maamulo howlgalka Mareykanka iyo Israa'iil ay ka filinayaan gudaha dalkaasi Iiraan amaba gaboodfallada iyo weerarka iyagu ay ku qaadeen dalkaasi. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in howlgal aan caadi ahayn xalay Mareykanku uu isagu sameeyay, weliba weeraro xoogan lagu qaaday gudaha dalka Iiraan. waxay sheegeen US Central Command in goobaha la duqeeyay ay ahaayeen goobo xasaasi ah oo dhulka hoostooda ah. ma ahayn baa la yiri goobo iska caadi ah, laakiin goobo aan caadi ahayn oo dhulka hoostooda ah ayaanu duqeynay oo ah goobo maqaasina ah oo dhulka hoostooda isla markaana ay yaaleen hub sida iyagu ay ku waramayaan. sidoo kale waxay sheegeen inay jireen qaraxyo iyo weliba waxyaabo kale oo laga maqlay goobahaasi. xitaa warbaahinta Faris ee dalka Iiraan waxay sheegtay qaraxyo laga maqlay magaalada Teheraan ee caasimadda dalkaasi iyo galbeedkeeda. telefishinku wuxuu sidoo kale tilmaamay in weeraradii dhacay ay ahaayeen kuwa si ba'an u saameeyay meelaha ay qaraxyadu ka dhaceen. geesta kale warbaahinta Israa'iil ayaa ku waramaysa in ka badan 2,000 oo askari iyagu ay dileen oo ka tirsan nidaamka dalkaasi Iiraan. waxaa sidoo kale la tilmaamayaa 800 oo howlgal ayaan fulinay bay yiraahdeen. wararkii ugu dambeeyay waxaa tani ay imanayaan marka iyada oo Donald Trump isagu sheegay in dhowaan howlgalka la soo afmeeri karo, walow saacadaha soo aadan uu tilmaamay inuu ku dhawaaqayo hadal weyn isla markaana dadka reer Mareykan ay sugayaan kelmad dheer oo qusaysa dagaalka Iiraan. haddaba maxay tahay lama garanayo markaasi. haddii Mareykanka iyo Israa'iil weeraro ay ka fuliyeen gudaha dalkaasi Iiraan xalay maxay samaysay? Iiraan xalay waxay u shiday Israa'iil waxay u shiday wax la yiraahdo yaan la hurdin, yaanba la seexan, cirka hal la eego xalay. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in goobo kala duwan oo koonfurta iyo bartamaha Israa'iil xalay ay duqeeyeen. magaalada Daymona, Be'er Sab'a iyo weliba kuwa kale oo ku yaala Israa'iil ayaa xalay lagu beegsaday. marka goobaha la beegsaday aad bay xasaasi u ahaayeen. telefishinka 12aad ayaa wuxuu ku waramay 6 gantaal in 6 goobood oo kala duwan ay ku dhaceen oo ka tirsan magaalada Tel Aviv iyo weliba nawaaxigeeda. hadda waa Tel Aviv kaliya 6 gantaal baa ku soo dhacday baa la leeyahay saaka. 6 markay sheegayaan adna waxaad isweydiisaa imisa la qariyay. xukuumadda Netanyahu xitaa warbaahinta reer galbeedku ma rumaysanayaan, waxay ku leeyihiin inta la qariyay ayaa ka badan. laakiin telefishinka 12aad ee Israa'iil wuxuu leeyahay hadda waxaa jira 6 goobood oo ku yaala Tel Aviv iyo agaarkeeda in 6 gantaalo kala duwan ay ku dhaceen. sidoo kale gantaaladii iyagu waxyeelada geystay waxay ahaayeen nooca kalastarka. baryahan halkii gantaal dhowr xabo buu madaxaha ku wataa, taasoo keenaysa marka qaraxiisa iyo saameyntiisu inay barka badato. warbaahinta Israa'iil waxay sheegtay ilaa hadda in la ogyahay 2 ruux oo waxyeelo ay ka soo gaartay gantaaladii kalastarka ay ku soo tuurtay Iiraan magaalada Tel Aviv, gaar ahaan barigeeda deegaanka la yiraahdo Bani Barak. halkaas bay markaasi ilmo Bani Barak halkaa baa lagu tuuray. marka warbaahinta Israa'iil ayaa sidoo kale sheegaysa Bani Barak
bariga Tel Aviv ku taala ay ku dhaceen dhowr gantaal oo aan sahlanayn oo nooca halista ah. Idaacadda Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in Israa'iil oo dhanba xalay laga maqlay dhawaqa digniinaha bixiyay iyo waliba markaasi weerar ku soo socda. Sheekaya badan baa jirtay marka xalay. Shabakadda Walla ayaa qortay warkan. Shabakadda Walla waxay leedahay xalay hawada Israa'iil Iiraan iyo waxa ku tartamaya Israa'iil marka. Hal diyaarad oo drone ah oo nooca aan duuliyaha lahayn ayaa gudaha u soo gashay Israa'iil. Iiraan baa laga soo diray. Soo ma rabaan iyagu inay ciidamada cirka soo ridaan waa la soo qaban waay. 20 daqiiqo cirka baa la isku cirsanay. Saastay markaa uga leexanaysa. Waliba hubka ay hadda isticmaalayaan waxaan caadi ahayn. Hawadayda ku jirta halkaa bay u leexanaysaa way soo wareegaysaa iyaguna waa bursanayaan gantaalkan bay ku ridayaan haddana midka kale bay ku ridayaan haddana way ka leexanaysaa haddana xalay 20 daqiiqo. Hadda ma waxa aniga ku sheegayo sheekada. Walla oo website Israa'iili wuxuu ku leeyahay oo telefishinka Jazeera wuxuu xiganayaa 20 daqiiqo saas baa la isku bursanay. saas way ciidamada cirka u raadinayeen markaa u cirsanayeen diyaaradaas Iiraan ay soo direen. Laakiin ilaa hadda lama sheegin in goobtooda ku dhacday iyo waliba in kale. Laakiin saas bay xalay u bursanayeen markaa. Xalay gantaalada goobiga ku dhacayna xisbiga iyagu ay soo tuureen waxaa ka mid ah sidoo kale Kiryat Shimona deegaanka la yiraahdo Kafar Yoval Margiliot Kafar Gilcadi Manara iyo Beit Helil deegaanka la yiraahdo. Inta oo dhan way isku marayaan markaa. Sidoo kale deegaanka Misgaaf Caam dhowr gantaal baa ku dhacday dhawaqa digniinaha bixiya baana laga maqlay. Xalay xitaa dagaalyahanadii Yaman ragga iyagu ma kaftamaan moogtahay. Rag sahlanna maaha. Xalay warbaahinta Israa'iil waxa leeyahay waxay baahinaysaa dhowr gantaal bay soo tuureen reer Yaman oo ay ku tuureen gudaha Israa'iil. Israa'iil waxay sheegtay in gantaaladii Yaman ka yimid laga hortagay koonfurta Israa'iil baana markaa la beegsanay. Laakiin laba markay ku sheegan adigu 50 kale baad maqlaysaa ama 5 kale adigu waxba iska jirjira. Magaalada Diimona xalay iyaduna lagama seexan dhawaqa digniinaha bixiya baa laga maqlay. Dadkii u dhahayo naga soo gaara meeshu cirku waa dhimbilo waa wada casaan wuxuu waa wada gantaalo ma sahlana. Marka meelo badan ayaa la tilmaamayaa xalay in ay aad iyo aad u beegsadeen Iiraan. Xalay Talyaaniga waa soo hadlay. Wuxuu yiri aniga Mareykanow saldhigyadeyda uma isticmaalaysid weerar aad ku qaadid dalkaas Iiraan. Wasaaradda difaaca waa hadashay waxay tiri anagu shaqo kuma lihin diyaar uma lihin waliba xitaa diyaarad baa rabtay inay shalay ku soo degato halkaaye waxa la yiri anagu diyaaradiina noo soo degan mayso qataatana hana gelinina dadka badda bay xirteen hadii garoonkana laga soo duuro xagga ma maraysid adigu xagga bay kugu qabanay halka baa lagaga jaraya marka waxay anagu qataata ma rabno banaanka baa ka taagana. Haddaba sheekadu ma sahlana. Iiraan iyadu waa la weerarayaa iyaduna way weeraraysaa. Xiisadu way taagan tahay. Faahfaahinno hadda soo baxayna waxay sheegayaan ciidamada Mareykanka inay ka been sheegeen diyaaradihii dhawaan la sheegay in lagu duqeeyay dalka Saudi Arabia. Waxaa jirtay diyaarad raadarada iyo waliba la socodka diyaaradaha kale iyo hawada iyo nidaamka difaaca oo dhanba la shaqeysa oo 500 milyan iyadoo ku fadhida oo awkasa in la beegsaday. Hal diyaarad waa la soo bandhigay. Waxa la xaqiijiyay inay jirto diyaarad labaad oo hal diyaarad aysan ahayn laakiin ay ka been sheegeen Trump iyo tiimkiisa. Laba diyaaradoodna ay yihiin wuxuu oo hal aysan ahayn marka la eego. Haddaba dalka Sacuudiga xalay waa la soo weeraray. Kooxaha dalka Ciraaq waxa iska caabinta 23 howlgal bay fuliyeen. Waliba saacadihii ugu dambeeyay waxay sheegeen inay weerareen airportka magaalada Kuwait ee dalka Kuwait. Saudi Arabia magaalada Riyadh iyo waliba Sharqiya iyo bariga Sacuudiga. Sidoo kale saaka iyaguna waxa lagu soo waramay airportka Kuwait marka la duqeeyay. Afayeen u hadlay hay'adaha madaniga diyaaradaha waxay sheegeen in dalka Kuwait la soo weeraray gantaalo la beegsaday laakiin goobta la beegsaday ahaayeen goobihii shidaalka iyo kaydka ee shirkadda Kuwait ee markaana diyaaraduhu marka ay ka qaadanayeen shidaalka marka halkaasina waa la beegsaday weerar ayaa ka dhacay. Wasaaradda Sacuudiga ee difaaca u qaabilsan waxay leedahay 2 gantaal baa la soo tuuray oo aan ka hortagnay 2 diyaaradood aan duuliye lahayn oo aan burburinay. Xitaa Bahrain lama dhaafin xalay.
haddii aan u gudubno dalka Lubnaan 5 ruux ayaa ku geeriyootay magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan 21 kalena way ku dhaawacmeen duqeymo xoogan oo ay geysteen diyaaradaha dagaalka Israa'iil diyaaradaha dagaalka ayaa duqeeyay deegaanka lagu magacaabo Baldatu Shamac iyo waliba kuwa kale oo ay ka qayb yihiin deegaanada xadka u dhow ee dalka Lubnaan wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan magaalada geesta kale deegaanka Daahiya al-Januubiya ee dhacda caasimadda dalkaasi ee Beirut ayaa lagu soo waramayaa iyaduna in dhowr gantaal lagu dhuftay oo guryaha halkaasi la duqeeyay warbaahinta Israa'iil lafsadeedu waxa iyaguna ay heleen markaasi xogo tilmaamaya in iyaguna gantaalo ka yimaada xisbiga ay ku dhaceen magaalada Haifa barigeeda saldhigay lahaayeen ciidamada Israa'iil ee ku yaala Safad waxa jiray sidoo kale goob loo deegaameeyay Israa'iiliyiintu oo lagu magacaabo mustawdanada la yiraahdo Sholomi iyo waliba deegaanka Nahariya deegaanka Zarciid iyo waliba kuwa kale iyaguna in la beegsaday oo weeraradu iyagu ay gaareen haddaba daawadayaal kuwani waxay ahaayeen wararkii ugu waaweynaa iyo waliba saacadihii ugu dambeeyay gantaaladii lagu weeraray Israa'iil iyadoona la tilmaamayo dhaawacyaha halis inay ka dhasheen sida warbaahinta Israa'iil ay soo gudbinayso haddaba muuqaalkan kii ka horeeyay waraysi ayuu ahaa oo aanu la yeelanay wariyaha weyn Maxamed Ciise Maracad Show waxaan markaa ka daawan kartaa muuqaalkan ayuu ka horeeyay amaba waxaan ku soo dhigayaa description-ka oo aad kala socotaan kartaan oo aad macluumaad badan waraysigaasi ka daawan kartaan magacaygu waa Cabduqaadir Qayska si share gareemaadsan daawada